بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ولا ليال، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركز تو الدنيا تكسو جنتهين وأنا سلامي ولا ليال إلهي سلامة إسلام كائن وسلامي المغلسين إن شاء الله تعالى. waxaan maanta aan mowduuc yaro aada u kooban waqti badan naga qaadanayn ayaan ka hadlaynaa insha allahu tacaala. walaalayaal, waxa aan ka hadlayo maanta waa Djibouti. dadka reer Djibouti way og yihiin, waxaan laakiin rabaa inay fahmaan waxa aan ka hadlayno. dadka walaalaha nahay reer Soomaaliyana waxaan rabnaa inay aada u fahmaan wadciga ay ku nool yihiin dadka ku nool dalka Djibouti. walaalayaal, waxaa jira mashruuc la yidhaahdo magaciisa OEM. mashruucaas oo UNE-da jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa qaybta immigrationka lagaga soo qaatay qadaraaskaas oo ay soo qaateen dad ka shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda iyo dad la saaxiiba wasaaradda arrimaha dibadda oo degan dalka Ingiriiska. marka waxaan jeclahay inaan mashruucan aan ka hadlo oon ka jawaabo 4 su'aalood oo lagaba maarmaan ah inay dadka reer Djibouti ay gartaan. su-aasha koobaad waxa weeye, wa-ayo dadka mashruucan sameeyey? su-aasha labaad waxa weeye, maxaa loo sameeyey mashruucan? su-aasha saddexaadi waxa weeye, reer Djiboutiga dibadda ku nool ee mashruucan lagu doonayo in lagu ugaarsado amba laga dhex daaqo, sidee yihiin wadcigooga iyo siyaasyoonkooga dhinaca juridiga amba qaanuunku? 4, sideen uga hortagnaa mashruucaas siyaasiga ah ee dhaqaalaha ah ee loola jeedo dhowr arrimood oon sheegi doono. sideen haddaan nahay dadweynaha dibadda degan ee reer Djibouti aan mashruuca u fashilinaa? waxaan ka hadli doonaa 4 su'aalood jawaabtooda iyaga oo kooban oo aan ka faa'iidaysanayno waqtiga. inta aan gelin inaan ka jawaabo 4 su'aalood, waxaan jeclahay 3 arrimood inaan ka horreysiiyo. 1, waxaan halkan tacsi uga dirayaa dadka reer Djibouti ee ku dhimanaya kaneecadan inooga imatay Afrika dabadeeda, iyo kaneecadii caadiga ahayd, iyo xumadda maaragtay caadiga ah, iyo cudurrada kale aadka u fara badan oo lagu qadaray maalinkii ilaahay uu waagu baryaba inay dhimanayaan dad ka badan 85 ilaa 90 qof. marka aan ka hadlayno waa jamhuuriyadda Djibouti oo dhan. marka reer Djibouti caasimadda 35 ilaa 40 baa dhinta, gobolladana intaa in leeg baa ku go'a. marka dadka intaa leeg ee dhimanaya 80-70 u dhaxaysa ayaanba waxbaa dhinta, laakiin waa dhexdii xisaabta waxaan qaadanay. waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto, dembi dhaaf ha uga dhigo, kuwa dulmiga ku samaynayana ilaahay ha uga argooyo tabaaraka wa tacaala. waxaan kaloo halkan tacsi uga dirayaa qoyskii iyo dadkii uu ka baxay xildhibaan Axmed Cabdi Kaahin oo ka ahaa Somaliland xildhibaan, isla markaasina abti igu toosnaa oo hooyaday ay ahaayeen habra wadaag. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaan leeyahay isagana ilaahay ha u naxariisto tabaaraka wa tacaala. arrintaas geerida markaan ka baxo, waxaan halkan ka ammaanayaa tallaabada ay qaadeen dhallinyarada activistiga ah ee aadka u dadaala ee dalka Belgium degan. waxaan si gaara u salaamayaa dibiteegii qaranka ee hore maaragtay Saciid Suleymaan Rooble oo dadku u yaqaanaan Sadaam, oo ah nin dhakhtarna ah isla markaasina ah dhaqdhaqaaqe siyaasadeed iyo xuquuqul insaankana u dirira. rasaas iyo hubna cunaha laga dhiftay ood ogeydeen berigii dadkii ka dhidhiyey arrintii buldhuqo. waxaan leenahay Saciid, shaqada aad qabatay maanta ka qabatay Bruxelles waxay ahayd shaqo lafdhabar u ah
siyaasadda qaranka iyo halganka dalka. waxaan kale oon salaamayaa samatar xasan maaragtay jaamac oo ah isaguna halgamaa, isaga oo ah dhallinyaradii muddada fara badan kusoo jirtay halganka oo ilaa iyo maanta aanan ka hadhin, isaga iyo hablihii iyo inamadii garab joogay dhammaantood, iyo inamadii furiidka ahaa iyo kuwii xisbiyada kale ku jiray, intaba waxaan ku leeyahay aad iyo aad baan inii salaamaya. marka arrinta labaad aan ka hadlayna waa arrintaas weeye. arrinta saddexaad intaan su-aasha ka jawaabin aan jeclahay inaan wax tilmaamo waxa weeye laba arrimood oo ku xidhan sistamka dalka Jabuuti. waxaa la yidhaahdaa cilmiga bulshada ee siyaasadda systematic ahaan waxaa la yidhaahdaa marka uu qofku wareero ee uu jeclaado xukunka waxa uu moodaa in uu dadka oo dhan ka caqli badan yahay. waxaa ku dhaca cudur la yidhaahdo cudurka doqonnimada siyaasadda. cudurka doqonnimada siyaasaddu waa cudurkii ku dhacday cumar xasan al-bashiir. waxaa u tagay wafdi ka kooban 25 nin oo aqoon-yahana oo culimo ah oo dunida muslimka ka socda 17 cisho ka hor intii xukunka laga eriyey. waxay ku yidhaahdeen waxaad saaran tahay dooni maaragtay badda ku dhacaysa, waxaa lagaa codsanayaa inaad xukunka iskaga tagtid. wuxuu yidhi dalka anaa niga aqaan, waxba kama taqaanaan, meesha tan anaa badbaadinaya igu daaya. haddana waxay ku yidhaahdeen dadkan dibadda jooga ee ooyaya wax u qabo, gaajada wax ka qabo, haraadka wax ka qabo. wuxuu sameeyey mashruuc uu ku ugaadhsanayo dadka dibadda jooga oo kan la mid ahaa oo loo bixiyey soodaanta dibadda joogta iyo horumarka dalka. marka waxaad moodaa siduu qur-aanku yidhi dadka siyaasadda doqmaha ah tashaabahat quluubuhum, quluubtoodu way isku eg tahay. atawaasaw bihi ma isma dardaaraane waxaa ka dhaxeeya xidhiidh foolxun. arrinta koobaadi waa arrinta labaad waxa weeyaan intaan mawduuca aan gelin mashruucan siyaasiga aadka u culus aan maanta inaga sheegin waxyaalo fara badan, waxaa inii sheegayaa arrinta la yidhaahdo Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu ku shaqeeyaa siyaasad 4 rukni leh amba 4 arkaan leh amba 4 tiir leh. tiirka koowaad waxaa la yidhaahdaa qaybi oo xakun. wuxuu sameeyaa wax la yidhaahdo dadka inta uu qaybiyo uu majaalis kala fadhiisiyo ayuu ka taliyaa dalka, dadkuna niba meeshiisa ayuu ka dagaalamaa oo qolada kale ayuu la dagaalamaa. siyaasadda waa siyaasaddii fircawn ee uu sameynayay qur-aankuna uu suuratu lqasas ku tilmaamay ina fircawna calaa fi lard wajacala ahlaha shiican. arrinta labaad ee uu sameeyo Ismaaciil Cumar iyo kuwa la midka ah waxa weeye dadka doqmaha ah een dareen lahayn iyo dadka danaystayaasha ah ayuu mujtamaca ka ugaarsadaa uu agtiisa keenaa. wuxuu fogeeyaa dadka caqliga leh tilmaami kara meesha laga baxayo iyakana u eryadaa. haddii berigii hore dumarka uu nooleyn jiray fircawn, dumarku maanta geesiyay leeyihiin, laakiin kuwani waxay nooleeyaan dadka aanan caqliga iyo dareenka ka dhisan. arrinta saddexaad ee ay sameeyaan waxa weeye waa arrin ku salaysan in aan la ugaarsado waxa dalka xoolo jiro oo dhan lasoo ururiyo oo la yeesho, waxaa loo yaqaano alfasaad almaali. haddii dalka oo dhan la qabtana dibadda sidii loo tegi lahaa ee lacagta dibadda ka imata loo ugaarsan lahaa. waxaa igu maqalaa in la ogaaday in dadku 5 milyaar wax ku dhow oo faranka Jabuutiya ay geliyaan dalka Jabuuti markay dibadda lacag ka dirayaan. lacagtan halkay martaaba la isweydiiyey, meeshii ay soo maraysay baa la samaysanaya. marka fasaadka maaliga ah iyay ku dadaalaan si ay wax walba u yeeshaan. markay caana qasabkii iyo baasta qasabkii waxaa ku xiga lacagta dibadda taalla in la yidhaahdo waxaad soo marinaysiin liin quraate oo loo bixin doono liin qasab ah oo dadka ku sanduloysay lacagta inay soo mariyaan. arrinta afraad ay sameeyaan waxaa ka mid ah inay dadka u abuuraan brobleemyo aanan jirin si ay dadku brobleemyada uga shaqeeyaan u iloobaan brobleemyada haysta. brobleemkan la yidhaahdo OEM oo ah in dadka dibadda immigrationka jimciyadda qurumaha lagala shaqeeyo problem maaha. dadka reer Jabuuti ay u baahan yihiin, dadka reer Jabuuti kaniica dilaysa xal kaniica u baahan yihiin, dadka reer Jabuuti roob hadduu oo dhooqa dilaysa xal bay u baahan yihiin, dadka reer Jabuuti jidad ma haystaan jidad bay u baahan yihiin, dadka reer Jabuuti 70% gaajo ku nool yihiin xal bay u baahan yihiin, dadka reer Jabuuti caafimaad ma hayaan, dhakhtarka Suudaanta dhakhtarkii geerida loo bixiyey, dhakhtar arraxma la yidhaahdo dhakhtarkii naxariis darrada loo bixiyey,
beeltiye waxaa loo bixiyey dhakhtarkii lagu sugayay dhimashada waxa weeyaan dhakhtaradoo dhan magac bay leeyihiin marka waxaa la rabo in xal loo helo arrintan iskuul ma jiro tacliin ma jirto ilmaha 70 qof baa galaadka fadhiisata xal baa loo baahan yahay iskuul in loo helo waxaa loo baahan yahay in xal loo helo shaqo la'aanta ee ma aha dadka dibadda joogay kaa soo baxsaday xal ay u baahan yihiin iyo kuma jirto marka su-aashaas intaas markan ka baxo waxaan ka jawaabayaa su-aalihii iyadoo kookooban si ay dadku u fahmaan waxa ay diidan yihiin iyo waxa meesha yaalla su-aasha koobaad waxa weeye mashruucan la yidhaahdo OEM ee ah in jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa qaybta immigrationka lala galay heshiis oo laga leeyahay waxaan rabnaa dadka reer Jabuuti iyo waddanka in la isku xidho mashruucaasi waa fiican yahay marka laga eego dusha maxaa yeelay waa mashruuc isku xidhaya dadka dibadda jooga iyo dadka waddanka jooga laakiin taa waxaa ka horeysa mashruuc ka horeeya jira mashruuca la yidhaahdo dadka gudaha jooga maxaa dalkooda ka saaraya oo dibadda geynaya limaada yakhruju aljibuutiyuuna zuraafaat reer Jabuuti iyaga oo koox-kooxa maxay dalka uga baxsanayaan bishan aan ku jirno 25 qof ayaa waraaqadii soo qortay iga codsanaysa inaan waraaqad u qoro oo ugu qoro dalka Canada si loo aqbalo in ay yihiin dad qaxootiya dadkaasi waxa weeyaan waa dhalinyaro waa dumar iyo haween waa ubad aad u yaryar waxa weeye waxay isdaba yaalaan maxkamadaha dalkan Canada magaalada Ottawa magaalada Montreal iyo magaalada maartay Toronto iyo waliba Alberta gobolka dhacdo iyo gobolka kale taba waxay u joogaan si aanan caadi ahayn marka dadka reer Jabuuti waxaa dalka ka soo kaxeeyay in laga hadlo weeyaan ee sideen kuwa dibadda joognaa dalka maartay ugu soo xidhnaa su'aal taala oo priority ma aha laakiin su'aashu waxa weeye si reer Jabuuti u gartaan mashruucan iyo sameeyay iyo ka dambeeya mashruucan waxa ka dambeeya Seeliil amba unug amba khaliyad sida u yaqaano magaalada London fadhida oo ah 5 nin waxa ay u shaqeeyaan nin wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeeya oo madaxweynuhu adeer u yahay oo qaraabo la yihiin ninkaas bay la shaqeeyaan waxa magacdooda imika ahaan ma sheegayno laakiin marka loo baahdo suwarkooga iyo magacdoodaba waan soo dhigaynaa haddii lugaha dhulka ay saari waayaan shanta nin ee joogta dalka Ingiriiska waxa ay qaarkood Jabuuti bay ku laameen jaamacadda shaqo laga siiyey iyo meelo kaleeto dugsi baa loo furay dadka Ingiriiska lagu baro laakiin dadkaasi waxay yihiin dad reer Soomaali ku dhiiban waa reer Jabuuti ciyaalku dadadu waa reer Jabuuti laakiin waxay ku dhiiban yihiin dalka Ingiriiska inay yihiin dad Soomaaliya ka soo baxsaday dagaaladii sokeeye ka dhacay marka kuwaasi iyo ninkaas aan sheegay iyo mashruucan isla dajiyay mashruuca marka ay dajiyeen waxay u geeyeen wasiirka arrimaha dibadda oo ariyaamahan ka shaqeynayay isaga iyo wasiirka maaliyadda ay ka shaqeynayeen dadka dibadda jooga diaspora reer Jabuuti inay dhex galaan waxay kadib garteen inay mashruucii qaadaan oo ay u geeyaan madaxweynaha kadibna madaxweynaha dictatorkii waa ogolaaday wuxuuna ka arkay solution dhinacii dhaqaalaha iyo dhinacii siyaasadda intaba leh marka mashruuca ayaa ka dambeeyay kuwaasa ka dambeeya mashruucan maxaa loo sameeyay su'aasha baan ka jawaabaynaa limaada hada almashruuc mashruucan wuxuu leeyahay 3 objective buu leeyahay amba 3 ujeedo leeyahay wuxuu xaqiijinayaa 3 hadaf buu xaqiijinayaa hadafka koobaad waa hadaf dhaqaale waxaad maqlayseen dhalinyaradii maanta ay wareysanayeen Saciid iyo Samatar oo ay arkeen raggii arinta daba guriyay ka shaqeynayay ee arintan gacanta kula jiray waxay ka arkeen su'aasha ah maxaad u jeedin wuxuu waxa la ogaaday nin rag ka shaqeynaya in Jabuuti sanadkii banka dhaxa soo saaray dadka dibadda jooga inay 5 milyaar oo dollar 5 milyaar oo faran oo Jabuuti inay waddanka geliyaan lacagtaas baa la rabaa inaan xalkeegii anaguna aan helo ku macneeyay laakiin su'aashu sida ma aha waxaa la rabaa lacagta halkay soo martaa waa kow dadka soo dira waa ay waa laba marka ay soo dirayaan meesha ay degan yihiin maxay ka shaqeeyaan waa 3 afar waxaa la rabaa in la sameeyo xawaalad qasab la yiraahdo oo dhada halka lacagtu ha soo marto reer Jabuuti lacagta halka soo mariyaan marka arinta koobaad ee ku jirta waxa weeye waa dhaqaale ay samaysanayaan 5 nin iyo ninka wasaaradda arrimaha dibadda jooga oo u samaysanaya inuu samaysto xawaalad qasab la yiraahdo mashruucan dadka lacagta dibadda ka soo diraya inayna soo marin xawaaladaha kale dalka jireen tan ha soo mariyaan amba se xawaaladaha ka sareyso xisaabisa oo lacagteedu ka qaadata iyaduna sida loo sameeyay arinta kale dadku ayna sheegin ah in la sameeyo xero xoolaha lagu xereeyo oo la yiraahdo
maaragtay xeradii qasabka oo xoolaha lagu qasbara in la geeyo lacagna laga helo tanna saasoo kale ayaa loo samaysanaya marka mashruuca koobaadi waa mashruuc ah dhaqaale laba waxaa loo samaysanaya waxa weeye waa arrin siyaasadeed kow maxaa siyaasadda loogu samaynayaa isbedel baa soo socda waa la ogyahay oo hareerihii oo dhan baa dumay 2021 waxaa bilaabmay kambaanigii waxa weeyaan waqtigan cabsi badan baa dowladda gasha waxaad ogtihiin magaalada Djibouti oo dhan in lagu xidhay kamarayo si dadka loo basaaso in la labalaabay mukhaabaraadkii iyo sirdoonkii sidaa daraadeed saddex qolo ayaa jirta oo inta badan siyaasiyan laga cabsoodo kow waa shacbiga miskiinka ah ee lagu tuntay marka uu kaco sidii 2016 mucjiso sameyn doonaa way og yihiin taas labo waa siyaasiyiinta runta ay ka tahay isbedelku hamba noqdaan culimo amba siyaasiyiin noqdaan isbedelka raba kuwaasna waa labo qolada saddexaad waxa weeye waa diasporaaga dibadda jooga oo la og yahay halganka meeshii ay ka soo galeen Mareykanka haddii ay tahay Canada haddii ay tahay Belgium saddexdaa meelood oo ahaa iyo Ingiriiskaba meelihii qarqarka iyo argagaxa ku sameeyay Ismaaciil Cumar Geele berigii 2013 saa daraadeed isagana mashruucani waa mashruuc siyaasiya oo lagu ugarsanayo hadafka saddexaadi waa maxay waa hadaf maxaa la radaa waa hadaf mukhaabaraati ah waxaa la rabaa dadka reer Djibouti ee dibadda jooga in la ogaado axwaasha ay dibadda ku joogaan waxaa la doonayaa dadka in laga cabsiyo waxaa la ogaaday dad badan oo reer Djibouti inay cabsoodaan oo ay dhahdaan anu mucaarad baan ahay laakiin waan cabsanayaa marka waa laga sii cabsiinayaa haddii la doono inaan mujtamacul khawf baa la abuuraya marka saddexdaa ujeedo ayaa projectigan laga leeyahay su-aasha saddexaad baanu iminaa reer Djibouti markay dibadda joogaan wadcigooga siyaasiyooga qaanuuniga muxuu yahay anu waxaan aad ula yaabanahay dowladda Djibouti inayna garanayn dadka ay xakunto sida ay yihiin dadka reer Djibouti ee dibadda joogi waa dhowr nooca koobaadi waxa weeye waa nooc Djibouti uga soo baxay si caadi ah oo iyagu reer Djibouti ka soo baxay sida matalan dadka immigrationka ee maaragtay doorashada ee maaragtay ku soo baxa ee sida macallimiin badan iyo dhakhtarro badan iyo injineero badan ay ku soo baxeen oo ay Canada ku joogaan oo dowladda Canada ay doorato doorashada maaragtay immigrationka doorashada dad la doortay oo imtixaan laga soo qaaday oo dalkan yimiday oo laakiin ka soo baxsaday xaalad xumida Djibouti ka jirta oo si maaragtay uga soo baxsaday aanan ahayn toos qoladaasi waa qolada koobaad weeye iyo kuwa kaleeto hore u soo baxay oo iyaguna France jooga oo aan oran karno waxay gaadhayaan tirooyinkooda kumaan qof oo reer Djibouti qoladaasi waa qolo kooxda labaad waxa weeye waa koox aad u fara badan oo Canada fadhida oo gaadhaysa kumaan kun waa koox aad u fara badan oo Mareykanka fadhida oo gaadhaysa kumaan kun waa koox aad u fara badan oo fadhida dalka maxaan ku dhahdaa Sweden iyo Scandinavia oo gaadhaysa kumaan kun dadkaasi waa reer Djibouti laakiin kuma dhiibno inay reer Djibouti yihiin qaanuunka situationkooga juridiga ay ku joogaan Canada Mareykanka North America oo dhan ay ku joogaan dibadda waa Soomaali amba waa Ethiopian dadkaasi waxay ku joogaan inay Ethiopian yihiin waraaqada Djibouti may declareeyeen nationalityga Soomaaliya may declareeyeen waxay declareeyeen waraaqada kale marka dadkaasi inta loo yimaado in lagu dhado reer Djibouti baa diinay isliis galiya waxay ka dhigan tahay in siyaasiyinkooga juridiga halis la gelinayo wadanadana waxa lagu dhaartay in run la sheego anigu waxaan u sheegayaa waxa aan qoray inay run tahay haddaan been sheego waa la iga qaadi karaa waraaqadaha ayaa ku qoran marka runtii aad ku dhaaratay kama weecin kartid marka dadkaasi inaa halis la geliyo iyagana waa la rabaa bay la tahay marka qolada saddexaadi saas bay ku joogaan maahaba qolada oo kaleeto ee qaanuuniga ku joogta waxa weeyaan waa dadkii mucaaradnimo isku soo dhiibay oo Canada inta ugu badani waxay ku joogaan reer Djibouti mucaarad baan nahay waxa Belgiga lagu joogo waxa weeyaan mucaarad baan nahay kuwii mucaaradka ahaa ayaa laga leeyahay kaalaya mucaarad ma tihiin dowladahana waxay u sheegeen siyaasiyinkoogu inuu yahay inay yihiin dad noloshoodu halis ku jirto hadday Djibouti ay tagaan amba ay Djibouti la xiriiraan markaas laga leeyahay haddaan nala xiriira oo nala socda gaaladana been u sheega laakiin annagana runtaan ku dhaqanna kaalaya waan heshiisiinay markaas waxa weeyaan waa in la garto situationka dadka reer Djibouti ay dibadda ku joogaan situationkana in la gilgila in la doonayo waa in la garto marka dowladda Djibouti dadkan ay leedahay waa niga daba imanaya waxa weeyaan waa inay gartay inay saddex yihiin
qof ka soo baxsaday oo hunguri uga soo baxsaday amba dawo la-aan uga soo baxsaday iyo dhakhtar la-aan amba uga soo baxsaday mucaarad siyaasiya iyo qof labaad oo ka soo baxsaday oo si maaragtay toosiyan uga soo baxsaday oo dhallinyaradani aqoon-yahankii isu soo dhiibtay ee cilmiga ugu soo shaqo tagay ah iyo dad ka soo baxsaday oo laakiin waraaqado kala sheegtay marka dadka ay ka daba imanaysa dowladda jabuuti waa dadka noocaas ah weeyaan su-aasha ugu dambaysa waxa weeyaan sidee baan u waajahnaa mashruucan haddaan nahay dadka dibadda jooga mashruucan wuxuu u baahan yahay inaan ku waajahno 4 arrimood oo muhiim ah arrinta koowaad waxa weeye waa inaan mashruucan qorno iyaa ka dambeeya maxaa laga rabaa sida aan sheegayno dowladda jabuuti maxay doonaysaa dadkani kanadiyaanka maxay ka doonaysaa dadka reer belgium maxay ka doonaysaa dadka maaragtay reer sweden maxay ka doonaysaa dadka reer norvegia maxay ka doonaysaa dadka maraykanka maxay ka doonaysaa oo aanu ku faafino jaraa'idka iyo majallaadka adduunka ka soo baxo dhan oo loo sheega dadkaasi noloshoodu inay halis ku jirto ay halis gelinayaan dhalinyaro seeliil fadhida magaalada london oo dalka ingiriiska joogta arrinta labaad in ku waajahayna waxa weeye inaan ogaano meel kasti ay shir ku qabanayaan kadibna banaanbaxyo laga hortago lagu diidan yahay oo lagu eryanayo area la dhahdo oo la eriyo weeyaan meelba aanan lugta ayna saarin sida ay sameeyeen dhallinyarada maanta dalka ingiriiska belgium joogtay arrinta saddexaad ee laga hortagaya waxa weeye inaan samayno etiid diraasaad dadka reer jabuuti ee dibadda jooga waxay ku yimaadeen waxay ka soo baxsadeen oo kadibna looyar loo dhiibo oo loo sheego in mashruucan casho uu yahay qolada heshay ee hay-adda ah ee Holland baa heshay maxay baa heshay inay tahay casho ay ka casheynayaan 3 qolo qolada koowaad waxa weeye waa siriirka qolada labaad waxa weeye waa dad Soomaali ah oo degan dalka maaragtay Holland iyo Yurub isla fadhida qolada saddexaadina waxa weeyaan ee ka casheynaysaay waa hay-adda ee shaqada heshay marka inaan intaba orno meeshani meel laga casheeyo maaha waa meel gaajo iyo haraad iyo cudur u mariyo weeyaan arrinta afraad ee ugu dambaysa waxa weeye in kaga hortagayna waxa weeye waa mashruucan ada tacriiq in la qaawiyo mashruucan weeye mashruucan waa inay ka hadlaan siyaasiyiintu waa inay ka hadlaan fanaaniintu waa inay ka hadlaan culummadu waa inay ka hadlaan ragga oo dhan iyo dumarka oo dhan waa inaan meel walba lagu soo bandhigo oo dhahdo mashruucan inaan qaawino oo ummadda reer jabuuti aan hor keenno oon tusno inuu yahay projectgii ugu dambeeyey ee EOG uu doonayo inuu u samaysto caana qasab baasta qasab waxaa ku xigi doonaa maxaa la dhahdaa xawaalad qasab marka inaan qasabka aan ku xorowno oo noqono dad waxaas oo dhan iska diidan markaas waxaan ka jawaabnay 4 su'aalood iyadoo kooban mashruucan ayaa ka dambeeyey waan sheegnay mashruucan maxaa loo keenay waan sheegnay situation jibuutiyaanka dibadda jooga juridiquement sidee tahay qaanuun ahaan waan sheegnay sideen uga hortagaynaana waan sheegnay marka waxa weeyaan mashruuca markaan fashilino waxay noo ballamaa inaan mashaariicdeennii kale ee siyaasiga aan galno dalkan wuxuu u baahan yahay badbaado siyaasadda jabuuti ee la dagaalamayno maaha siyaasi ina xakuma oo siyaasiyiin kale ay tartan kula jiraan waxa weeye nin kule anaa kule ana kule anaa doonaya kule anaa doonaya boqol goorba maqasheen anaa doonaya maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay dhallinyaranimo siyaasadeed waxaan rabnaa annakaa doonayna anaa doonaya maaha anaa raba maaha annakaa rabno weeyaan annaku waxaan rabnaa haddaan reer jabuuti nahay dowlad 3 arrimood haysata waxaan rabnaa dowlad waxa dhex yaala la qaybtamo la wada cuno la wada dhiso lagu wada noolaado dowlad xurriyad leh oo dadku iyagoo xor ay noolaadaan dowlad cadaalad leh oo justice leh oo aan la qaybin dadka oo lagu qaybin qabyaalad iyo qolo oo kolba qof la dilin taasaan rabnaa mowduucaas baan jeclaaday inaan maanta inala wadaago mowduucaas ka niqaasha ka dooda shirarka qabsada hoos u fiiriya annagu haddaan kanada nahay waan iska iman doonaa waan ka hadli doonaa waan maaragtay calalin doonaa waxna waan ka curin doonaa waana ka dhalin doonaa waxaanan maaragtay haggan degan siyaasiyiintii aadka u culusaa ee axsaabtoo dhan ku jiray ee dagaalka iyo maaragtay halganka soo galay arrintan waan iska iman doonaa waxaan rabaa inay dadka ingiriiska joogana saasoo kale dadka belgium joogana saasoo kale oo la iska daaya caatifada ah laablakaca maruu la kacaya haddana la iska baktinayo inaan noqon dad wuxuu dhagaystaa oo la dhahdo sheekh hebel muxuu yidhi iyo gabadhii heblaaye maxay tiri iyo ninkii hebel muxuu yidhi waa inay noqoto ummad isku duuban oo projectgayga iyo mashruuciga wadata arrinta ugu dambaysa waa inuu hadafkeenu caddaado hadafkeenu maaha callaan iyo fulaan hadafkeenu waa dictator inaan iska ridno
nidaam siyaasadeed oo ummadda baabi'iyey in la iska rido oo la asaaso nidaam siyaasadeed oo maaragtay barnaamij horumar leh soo tabinaya oo soo dhigaya waad mahadsantihiin dhammaantiin waan salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh